Xildhibaanka degmada Lafey Mudane Maxamed Cabdiqayr oo booqasho shaqo uu ku joogay deegaanada kala duwan ee Lafey ayaa maanta gaaray tuulooyinka Towsi, Bambo iyo Gaari. Xildhibaanka ayaa waqti la qaatay shacabkiisa, isagoo ku booqday goobaha shaqo iyo xaafadaha. Shacabka tuulada Towsi oo xildhibaanka booqashadiisa maanta uu ka bilaabay ayaa soo dhoweeyay xildhibaanka, iyagoo dhinaca kale codsi u jeediyay inuu laba jibaaro mashruucyadiisa horumarineed. In badan aan cabanayno madaxdayna ku aragnaa aan lahaynay ilaahay baa noo kaa keenay kulley ilaahay waxa noo qoro waa noo wadaa wixii ilaahay noo qorayna ma arkayna taladaas waan u fadhinaa ilaahay haddaas yiraha midda kala soo dhawaaw qolnimadaada ku soo dhawaaw dadkaada ku soo dhawaaw dadkan waa reer Towsi tuulidan aas aragtay oo intaan dhan ayaa hal nin oo cabdi moodo dhaxda xabal weyn ilaahayna oo nagu garab galay kursigan waa lagu siiyay kuraadi waa lagu siiyay anaga waxaan nahay sabsukte waxaan nahay dad jid dhex jooga oo dadkii maal jidka dhex joogaana oo sugte nin jidka dad joogana ma laga wareegin karo waxa soo sabartaa waan ku soo dheew taas darteed soo dhawaaw sugayni xibintii aan ku leeyahay maanta ka rabnaa waa Towsi ahaan xibin aan ku leenahay waana noo fadhiyaa maanta ay tabto raajinimo kali adigu ogtaan malayna meeshaan waxaan malaynaa meesha biiba daahayeen meesha day motor lahayn haday war lahayn haday adiga dad iyo duuyi nafay aad tahay horsi loo leeyahay waa adagtahay maalin ma hayaan intaan dhaxdooda gaari dusayaan ku nool gaari mar 7,000 mara ma 8,000 mara ma 10,000 noqona mar waa waxa ajnabi wata waa wayna si lagu nool leeyahay waa war meesha ku soo ogtay meesha ay ku taal hatta daad ma imaado ilaahay noo kaan keenay waxa soo sheegayno meesha adiga ka warqab ma baahan malayna adiga wixii dhabka Towsi aad qaba sheega waa isoo boqday oo soo war noo baa soo saas ma mid u horeyso meesha biyo aad qabato waa la rabaa haddaan sidii ku noolaan leeyahay biyo ku helay inaad koow ka qabato horta waa la rabaa meesha maxaa eel male mala hadii war male iskuul hadii ay ku diiday dhilxa meesha laga dhisay rajista male macallin kooy dhilxa youtube oskii aad ilaaha ku rooyay 10 qof wadaadkii meesha ninka in calmadaba ka joogo qolka lagu madarin qolka horta meesha dibka qabto waqti anaga wax weyn oo kale ku sii daray malaha anaga waxaan u baahanahay in dad baahanaan anaga wax qabasho u baahan wax qabasho dad u baahan anaga wax kale sheegayno aan ku dareen ma bala in hadda ugu dhow maarta meeshii maarta hawl horta xagga biyaha nooga dadaal nooga sameey aadan u jecelnahay iskuulkaas iyo waxyaalo barkood magaalada adduunka waxa way hadda Kenya dad fiirsan meeshii iskuul iska dhisan yahay xogaha aan taxgelinaya meel iskuulka ka dhisan lama taxgelinaya aniga waxa maarta kulliyeed waa xagga dawladda la taxraacaya marka iskuulka naftiisa waa bilowday laakiin inaas wax ku dirta waa loo baahan yahay oo ninkii maarta akhrina fiisa waxba maqaad odayaashii dhalinyartii iyo maamiyaalka reer Towsi oo waqtiga gaaban oo fartiin soo gaarsiinay si wanaagsan nagu soo dhaweeyeen noogana soo baxeen horta waa mahadsantiin wixii codsiga waa maqalnay insha Allah wixii tabartaayna wax waa qabanaynaa number 1 waxa laga dhawaaji arrinta biyaha alxamdulillah dadda baragayba countiga indhisay saa loo dhisi hayay iidan walba wartaan hadda meeshii oo baraagtii hore oo gacan ku qodiheed oo inta soo gaarsiiseen oo qarash isku maqan waana la soo tusay ama tii war u bedelna ama meel kale la tusmeeyo horta insha Allah wax baan ka qabanaynaa iidana marka arrinta biyaha oo Towsi wixii ka qaban karna insha Allah maxay waa meel taas u sheegteen geed go'on oo la aqaanin oo duur iska ahwa marka inta la imbarto oo magac leen yeelo oo sida meelaha kale hadda aan laga laami karin aad noqotiin horta in soo gaarsiinayna insha Allah maanta garab bihiilida u baahneen waana garab istaagteen Sooma marka insha Allah waanagana waan garab istaagaynaa intii kaalintaay noo qaban karna waa qabanaynaa tirada markaan isku soo noqono idoo warka intaan askar fiicanyo idigan dhogortiin intaan ay ka yar fiicanto dad la hadli karaan aan imaadayna insha Allah idigan waxa leen ka rabaa inta daawud iyo ducada nagu soo kaalmaysiin wax horta aan baraka lahayn meel ma gaarayin
marka intaas ilaahay barakana siiyo oo dad baraka leh oo dadkooda u adeegi karo codkooda iyo gacantooda iyo waxooda kulli baas ilaahay barakeeyo hortaas ilaahay naga dhigo horta aan soo duceyna marka insha Allah khayr Allah CMCA waa dadaali asagana waa aragteen kalaaskaas waa bilaabay anagana wax baan ku dari doonaa marka insha Allah hawshaan iskuulka iyo biyaha iyo wixii la rabo insha Allah wixii u daran wax waa ka qabanayna maxaa yeelay anaga bilaadan aan wax kasta ma qaban karno hadda inta meeshan hor istaagno codsi kasta oo sheegteen waa qabanayna dhahan biri ay been noqoto meeshan dir isku qabsano soo dhib ma waxa yar askari karta inta la sheegaal raan dir markii kale la imaado waxa kale lagu dhiibo walax iska qabatid la wax kasta oo dusha saarat biri si duqa sheegay oo shanta soo dhamaanaysaa hore si qolqol leesle soo kadib xildhibaanka ayaa gaaray tuulada Baambo halkaas uu kula kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha haweenka dhalinyarada xildhibaanka ayaa shacabka kula sheekaysay goobaha shaaxa lagu cabo eelka saas oo kala qalbigayna eedas u soo degay warta waxa ku jirto taraka ku jirto insha Allah hawlaha waa socdaan Allah ku garab gala insha Allah ilaahay idinkiisa waa ku faatixinayna arimaada kaamil Allah ka dhiga marka idinka nabadii khayr ceelkiina had waa la dhamay biyo waa la soo test garay waxa la xoolaha waa cabi karaan laakiin dadku waxa la ilaa laga daaweey laga tirid garay dadku ma cabi karaan wartiyaha hadda buraaqo biyo kugu jiraan Sooma wixii afeen xagga lagu caba wixii kala daraab loo hagaajiyo xoolaha ku cabayeen laakiin waqti dhow insha Allah weedan biyaha macaana laga dhigi doonaa Bible soo qaadi doonaa ilaa inta fadhigiina isku cabi doontiin mar shaqada waa soo socotaa faataha la isu soo mara hal la isu soo duceeyo marka anaga wixii noola dir insha Allah wixii tabar naga dhaaf waysamoogi inta meel marino oo soo shaqeyno oo shaqeyn soo qaban horta diyaaran u aanay hawsha noo dirteen insha Allah intaan ku filinahan aan aamina insha Allah marka waan noo hagaagi doontaa kadib xildhibaanka ayaa sii gaaray tuulada Gaari halkaas uu kula kulmay shacabka isagoo lug ku soo dhaxmaray goobaha ganacsiga xildhibaanka ayaa galinkii dambe gaaray goob loogu tirigalay in deegaanka Gaari looga dhiso iskuul cusub